safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ganacsato iyo culimo diinka Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa iyagu waxay ku dhawaaqeen guddi ka shaqeeya taakuleynta dadkii ku dhaawacmay qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay Sabtida aynu ka soo gudubnay. Guddigaasi ayaa ku dhawaaqada kadib ay soo booqdeen isbitaaladii la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Cabdishakuur Farax ayaa warkan ka soo diray Nairobi. guddiga taakuleynta dadkii ku soo dhaawacmay qarxii 14 bishani ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ee looga dhawaaqay magaalada Nairobi ayaa booqasho ku tagay isbitaalka Kenyatta Hospital oo ay ku jiraan dhaawacyo dhawaan laga keenay magaalada Muqdisho. guddigani booqashada ku tagay isbitaalka ayaa waxa hogaaminayay qunsulka guud ee safaaradda ahna siihayaha xilka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya Ali Maxamed Sheekh Ali Bagadi. Sheekh Maxamed Cabdi Umul gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii aqoon-yahano iyo dhalinyaro. ugu horeyn Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee dhaawacyada yaala isbitaalka Kenyatta. anta waxaan booqasho ugu nimid dadkii isbitaalka Kenyatta yaalay oo dhibaatadu ku soo gaadhay dhacdadii xanuunka lahayd ee Sabtidii ka dhacday Muqdisho. 6 mise 7 ruux bay ahaayeen ayaa meesha jiifa oo soo marnay xaaladoodu inta badan waa iska degan tahay alxamdulillah waa warsanay waxay dareemayaan runtii wax weyn mayna sheeganin processka oo socda iyo waxoogaa ruux xanuunsanaya dad xanuunsanaya sabirku waa ku yaryahay inagoo Soomaali ahaanba markii hore sabirkeenu iskaba yaraa haddana ruux xanuunsanaya ka sii xag jira garawshuuna leeyahay laakiin runtii markaan iyaga ka soo dhammaanay maamulkii u sarreeyay isbitaalka ayaan la fadhiisanay wixii ay tabanayeen oo inoo soo sheegeen baan u gudbinay intii badnayd waxay sheegeen inay ku dadaali doonaan horeyna u dadaalayeen. dhanka kale qunsulka guud ee safaaradda ahna siihayaha xilka safaaradda ee dalkani Kenya Ali Maxamed Sheekh Ali Bagadi ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii loo qabtay dhaawacyadan iyo waxa ay u baahan yihiin. waxaan booqasho ku nimid isbitaalka Kenyatta Hospital meesha ay ku jiraan 7 dhaawac Soomaaliyeed ee la keenay maalintii dolaad ahayd. alxamdulillah daraadna waa shalna waan u nimid maantana waan u nimid xaaladoodu gooni aan wareysanay oo aad ay u fiican yihiin alxamdulillah rabbil caalamiin. processkii iyo dawadii meesha loo keenay hawshu way socotaa qaarkood waxa laga qaaday dhiig oo jawaabtii wali la sugayaa qaarkood waxa laga qaaday CT scan iyo X-ray waxba laga qaaday igan jawaabtii waa la sugayaa. waxaanu kala hadalnay maamulka isbitaalka waxay ka caawinayeen patientsiga raashinka meesha dadka la siiyo marka waxaan u sheegnay in loo ogolaado in raashin iyagu ay yaqaaniin cuntada in dibadda loogu keeno way naga ogolaadeen. waxay kale weydiisteen sida sharciga adduunka u yahay qofka dhaawaca marka meel la seexiyo ama qof xanuunsan marka meel la seexiyo lama ogolo sharciyan inuu qof dul taagnaado. qofka ugu jecesha hadduu yahay adrees baa laga qorayaa meesha dhakhaatiir baa joogta hawshiisa waa la soconaya haddii wax ku soo kordhana lagu soo wacayo lagu sheegayaa. Cabdishakuur Farax Igale Universal TV magaalada Nairobi.